kadib bayaankii wadajirka ahaa ee xalay ka soo baxay xubnaha golaha wadatashiga qaranka ee ay heshiiska rasmiga ah kaga gaareen arrimaha amniga doorashooyinka iyo dimuqraadiyeynta dalka iyo dhaqangelinta heshiisyada ay hore u gaareen xubnaha golahu madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud oo ay horeer joogaan xubnaha kale ee golaha wadatashiga qaran ayaa maanta shir saxaafadeed u qabtay warbaahinta isaga oo faahfaahin ka bixiyay heshiisyada ay golahu gaareen iyo sidoo kale waxyaabihii dhaliyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadal jeedintiisa ku bilaabay ka hadlidda iyo ka taariikhaynta halgankii iyo dadaalkii dheeraa ee loo soo galay dawlad dhiska iyo dimuqraadiyeynta dalka ayaa tilmaamay in la soo gaaray bardhamaad ay adag tahay in lagu sii socdo isaga oo tilmaamay inay lagama maarmaan tahay in talada shacabka lagu celiyo waxaa dalku u baahan yahay dib u dhis maalgelin iyo maxaanku yiraahdaa inuu soo qabto dhammaantiin intaas oo dhan waxaa shuruud u ah dalku inuu leeyahay dawlad sal ballaaran oo sharciyad ballaaran leh dadka Soomaaliyeedna masasha si dhab oo buuxda u matasha duruufo oo matalaad duruufo ay keentay waa soo haysan jirnay walina in waan haysanaa laakiin markaan inaan ka sii ballaarino oo matalaad ku salaysan codka shacabka iyo maxaanku yiraahdaa go'aanka shacabka dawladnimadeenu inay ku salaysnaato dalka haddii aan xoreyno waxa ugu horeeya u baahan yahay waa nidaam xukun ah oo dalka oo dhan ku baahsan inta badan dalka nimanka khawaarijta ah ee muddada 15 sano 16 sano ku dhow ay ku fadhiyeen ku habsadeen maanta intii laga kiciyay inta dhimana laga kicin doonaba waxay u baahan tahay dawladnimo iyo xukun in la gaarsiiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan doorashadaasi isaga oo hoosta ka xariiqay inaysan furnayn wada kale oo ah in shacabka lagu celiyo talada waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed walaalayaal meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay cabsida aan yareyno shakiga aan ka baxno 30 sano ka bacdi Soomaaliya qof xoog ku haysan karta male nin asagu shaatigiisa inta tashto gashto iska joogi kara male sheekadaas way soo dhamaatay dadka Soomaaliyeed ayaa loo bandhigay ninkii dadka Soomaaliyeed wada fiican marsiinayo inta doortaanay mar labaadna doortaanay wadayaan waana helaya xisbigii dadka Soomaaliyeed dhaqaajinayo oo itijaah iyo dhinac fiican u dhaqaajinayo dadka Soomaaliyeed cod iyo kalsooni iyo buuxda dawlad Soomaaliyeed oo isqabqabsigeedu yar yahay oo deganaanshiyo siyaasadeed leh dalkani siyaasad qaribantay ayuu 33 sano meesha u joogaa dalkani siyaasad aan nidaam loo raaca lahayn iyo xukun nidaam uu ku yimaado iyo nidaam uu ku bax aan lahayn ama uu daciif yahay nidaamkiisu ayuu u taagan yahay meesha waan ka nimiday maanta waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan halka ka guurino ra'yiga aan keenno waa ka aayada quraan oo munazzala ma aha waan bilownay shacabka Soomaaliyeed u taala ayaga loo soo bandhigaya baarlamaanadooda imaanaysa bulshadooda rayidka masaajidda wadooyinka baararka meel walba looga hadlaya dadka Soomaaliyeed waxa ay rabaan ayaana soconayo madaxweynaha jamhuuriyadda qodobada uu ka hadlay waxa kamid ahaa dadaalka dawladdu ay wado ee barnaamijka deyn cafinta oo uu tilmaamay inuu gabagaba marayo ahmiyadda barnaamijkan ayuu madaxweynuhu faahfaahiyay dalka deyn cafinta lacag dhowr bilyan oo dollar oo Soomaali muddo dheer ugu lahay ayaa laga cafinaya laga tiraya Soomaaliya waxay u yeelanaysaa fursad inay caalamka la macaamisho inay deyn qaada karta kale inay dad ajaanib ah iyo maalgashi toos ah waxa afka qalaad lagu yiraahdo direct foreign investment inay heli karto dadka Soomaaliyeed inay dalkooda ayagu maalgasho karaan dadka saaxiibada ee ajnabiga ah inay dalka yimaadaan ay maalgasho karaan waxay u baahan tahay si dalka loo maalgeliyo dawlad sharciyad ballaaran oo dadka ka haysata leh oo dimuqraadi ah oo ku salaysan nidaam iyo institution la yaqaano ku timiday codka dadka ku timiday madaxda heer federaal iyo heer dawlad goboleed ee ku midaysan golaha wadatashiga qaran oo maalmihii la soo dhaafay shir uga socday caasimadda Muqdisho ayaa xalay soo saaray bayaan rasmi ah oo ay heshiis uga gaareen arrimaha doorashooyinka ammaanka iyo sidoo kale dhaqangelinta heshiisyadii ay hore golahu u gaaray Shucayb Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliyeed madaxtooyada dalka